and Shahmal Halwo. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وها شرفي عاو إن مارتي يعني يقول ليت سيدي وشيء عيديد كل جن ليت بان مارتي قد يداني تين أن وجاني إن هذا لينه مرك رالي بان نجاه هاني سان هدان مارتي وحياه بدن كتجنو وحياه بدن أن مارك قدرنا رالي نجاه هذا. وحماش يسقوني من مركو الرئيس وتعسيدنا ولا الله شيء إلهي أنت دمتي أهل كينا ومسلنا الله ونحرسته دم بجودي دم بجوالد كنا الله دافع قبر جودنا الله ونوريه هذين نقطة أديركن عبد العزيز أو بريد بوستن لها هذين نقطة أديركن عبد الرزاق إيو أديركن ولالك عبد القادر حلو الصدق جيسا عبد الرحمن لو جرب والرياض كل أنتي أسجن الله ونحرسته كل جود الله ودنا حرسته جندي فردوسنا الله كورابيو نول بعمل كيسبا كهرية إننا نودع على أن الله فري وحم أرنت الله بعد أنك هذا يوحي مركو كهريسة وحم سود نصيب ويا لنا مقالنا بوسطن إن أي وزير رضع عصب حاس كيسي لوح أي عاوة أنك هالكارير بوسطن قالوا متهاي وزير كارمها جدها وحكلوا نصيب ويا لنا علي فيصل وزير هراء أثناء دولة فدرال كأنه نلجوه وحكلوا نصيب ويا لنا حلبانات فاطمة الظاهر وحلبانات هراء يوم مرت الشرف تقدر مارتي ويلكم مارتي عدان يمدو مسلم يقال كسر وهذا مارتي حفلة دينا نعاو وحن كهلا هيا وحوي أنا سجانتنا ما قاولا يقبضيا لكن وحرب وحير ودورشدان أنتي أي سعتي مركوجه الرئيسة عن ملاحظة كسمي أن دريمي إن أنا إذا لشير قرأي عاو دورشدة بنتي لانكد علي وحي تهيم التاريخ ده كقرن نقول قرن كل قرن دونته مركب وحرب وحيابه أنا وعن كدريمي إن العاو إذنك إلى وداكتان مركو روحا مهد إسكال إلهي سبحانه وتعالى بانو مهد علينا سيدا شرفتا إيه نظامك إيه قروح دالا وحنوغو أغاسيمي إساقا وحوال بوانا أكسان أغاسيمة مركا حيقا وحان آد إيفرح قليي عيدا ماذا قلب كسيدا إيه بنتلان ومدحدا يهقاميها ويهي سعيد داري سيدي سجدي وأمني وأسوغي أمني بنتلان وقتي دورشد سعتي ومد أنيقا هنتي ميل قارة إيو قرن waxaan kaloo aan mulaaxado ku sameeyay ismada Puntland sida ay turxaan bixinta iyo tanaasulida ay isugu sameeyeen ay markii ay doorashada socotay waqtigeedii iyo fitradeedii ay wax kasta u turxaan bixiyeen taasina meel bay iyadana iigu taal waxaan kaloo aan dareemay General Cadam Muuse dadaalkiisii iyo qayladhaantiisii oo joogtada ahayd oo intii khilaal ee doorashada socotay uma aragtay habeen iyo har iyo maalin uu la taagnaa wax kasta oo ku soo gaarayna uu u dulqaatay isagana mahad iyo bogaadin baan ugu jeedinayaa waxaan kale mahad u jeedinayaa Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole hogaamintiisii hufnayd oo dad badan ay dareen qabeen laakiin uu maaragtay from east to west maaragtay ay noqotay maaragtay dareenkii dadku qabeen oo ku bedelay dareen caafimaad qaba isagana waa u bogaadinayaa waxaan kaloo bogaadinayaa General Cabdisamed Cali Shire oo ku xigeenkiisa ahaa oo hawsha isla wadeen iyo Cabdirashiid Xirsi oo baarlamaanka inoo hayay iyo Maxamuud Ismaaciil oo Cismaan oo sida maxkamadda hayay hogaankaas wuxuu ahaa iyo wasiiradoodii anoon kala reebayn magacyada hadda waqtiga la soo qabtay mahad gaaraan u celinayaa oo aad oo qata dheer waxaan mahad iyo waxaan mubaaraka u dirayaa marka ugu horeysa madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Cabdiweli Cali Gaas waxa weeye mabruuq baa leeyahay Cabdiweli shaqadiisa wali ma aanan arag laakiin waan u duceynaynaa
waxaan leenahay ilaahay ha ku fududeeyo hawsha lagu igmaday hawl culus weeye Puntland arinteeda arin culus weeye ilaahay ha ku fududeeyo ha kula garab galo adigana waxa laga rabaa dabacsanaan iyo dulqaad iyo cadaalad iyo sinaan ina dadku wax u qaybisid waxaan kale aad ii taabatay Cabdiwali aan taabanaya tawaaducnimadiisi isaga oo ah prime ministerka Soomaaliya soo noqday inuu hoos u soo dago si uu dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabto taasina waa arin mudan in la xuso waa arinta aan ka fahmay ama ka bartay doorashadaas sideed dhacday bishii Janaayo waxaan kale oo taabatay mudane Cali Xaaji Warsame campaignkiisii hufnaa oo runtii dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan dibad iyo gudaba sida ma aragtay hufnaanta uu campaignkaas uu ahaa nasiibka iyo doorashada waqtiga Ilaahay baa qora qofna kursiga kuma fariista hadaan alla u qorin laakiin waxaan ka baranay asagana campaign nadiif oo hufan dadka reer Puntland ay ka barteen isagana waxa weey bogaadin baan u jeedinayaa waxaan kale dhammaan musharaxiintii isu soo sharaxday xilka madaxnimo iyagana waxaan ka bartay mintiinimadoodii iyo xilkasnimadoodii ay dareemeen dalkooda jiil cusub inuu qabto oo bedelo ay ma aragtay habeen iyo maalin iyagoo oo nabad ah doorashadaas ay ku dhameeyeen iyagana bogaadin baan u jeedinayaa waxaan bogaadin u jeedinayaa shacabka reer Garowe gaar ahaan shacabka reer Garowe soo dhaweyntii sharafta badnayd ay ku qaabileen walaalahooda iyo dadka doorashada isugu yimid oo meeshaas doorashada si ay hufnaan iyo nabad uga dhacdo ayagana bogaadin baan u jeedinayaa waxaan guud ahaan bogaadin u jeedinayaa shacabka reer Puntland sida ay dhagta ugu raariciyeen inay doorashadaas la socdaan oo ay maaragtay hadba la jaan qaadaan hadba meesha ay marayso oo habeenna u soo jeedeen iyagana bogaadin baan u jeedinayaa waxaan kale bogaadin u jeedinayaa international community-ga iyo maamul goboleedyadii ka soo qayb galay maxaan ku raad doorashada international community-ga supportigoodi aad iyo aad baan bogaadin ugu jeedinayaa iyo maamul goboleedyadana waxaan leeyahay walaalihii jira sida aad walaalnimada noogu soo gurmateen oo noogu timaadeen innagana waxaan idin jawaabaynaa maalinta aad dawlad goboleed dhisanaysaan ina annagana idin garab istaagno dadka reer Puntlandna waajib ku noqonaysa in la idin garab istaago oo la idin la dhiso wixii idinka maqan la idin la qabto iyadana mahad iyo bogaadin baan soo jeedinayaa waxaan mahad kale u soo jeedinayaa dadka Nairobi ka yimid oo uu ka mid yahay Professor Ali Maxamed Geedi iyo Professor Cabdiraxmaan Baadiyo iyagana waxaan leeyahay mahad iyo Cabdiwali Ugaas Cabdiwaaxid Ugaas iyo maxaan ku Xuseen Ciise Carab iyagana iyo kuwii kale oo aan magacyadooda aan hadda xusin iyagana waxaan leeyahay aad baa ugu mahadsantihiin waxa guud ahaan iyo gaar ahaanba mariyooyinka iyo mudanayaasha ka soo qayb galay dalka dacaladiisa ka soo qayb galay mahad baa u jeedinaya mahad madaxda Jubbaland madaxda Galmudug madaxda Ximin iyo Xeem waxa weeye waxa ku soo gabagabeynaya لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون وحا إلهي كرجينا قوة ظلمات كلا صار نور كلا صار إنه إلهي نقدره إلهي تاسان كبرينا كلن كينا كلن خير كدغو kala tageenan kala khayr ka dhigay dalkeena iyo dadkeena nabad ilaahay noogu geeyo Soomaaliya midana ilaahay ina tuso inagoo nabada iyagoo nabada ilaahay waxaan ka baryaynaa Puntland inuu kor yeelo gaas iyo Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Camey oo ah maxaan ku raadahay madaxweyne ku xigeenka iyo Saciid Xasan Shire oo gudoomiyaha baarlamaanka ah Cabdixakiim Sheekh Cabdisalaan Ciise oo gudoomiye ku xigeenka ah iyo Xaaji Xuseen Diiriye intaas waa dawladda cusub iyo xukuumadda cusub oo lagu dhawaaqay intaba gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay dadka Puntland oo kula dardaarmahaya in la muujiyo midnaan iyo sinaan iyo walaalnimo waxaan midnaan lagu gaarin iyo wadajirna waxaad ogaataan inaan tafaraaruq iyo kala tag lagu gaarayn haddii aad midowdaan Soomaalina waa midoobaysaa wax midooba ilaahay tawfiiqdahayna waafajiyo waxa caawa halkan iyagana nala jooga oo rabaa inaan xuso Maryan Axmed Gaas
oo maamulada in maxaan ku raahdaa community-da magaalada Boston ka jooga waxaa nala jooga Cabdiraxmaan Yuusuf waxaa nala jooga Armaajo waxaa nala jooga Cabdiqaadir Yaasiin dadkaas oo hogaamiyayaasha magaalada iyagana waxa weey aad baa u mahadsantihiin imaatinka caawa xafladana nagala soo qayb gasheen iyo dhammaan shacabka joogaba waana mahadsantihiin dawladana waxaan leeyahay guuleysta cadaaladana ku dadaala dadka inta aan qancin anigu kama hadlin haweenka waayo wax badan baa la igu hujuumay dhanka haweenka oo la yiri haweenka ha ka hadlin marka haweenka waxaan leenahay anigu kuma qacsanin dawladda hadda la magacaabay haweenka intay siisay waayo dawladda hore 4 bay siisay hal baa lagu daray 1% ma 47 out of 4 baan nahay hadda wali 5 marka wali waxaan laakiin rajaynaynaa fursad baan siinaynaa Cabdiwali maadaama uu campaigner-keeni yahay Cabdiraxmaan oo ahaa mid ka sii xoog badnaa asaga xagga dhanka haweenka haday noqoto labaduba ay yihiin dhanka haweenka kuwa u dadaalay ay yihiin waxaan idin ka rajaynaynaa inaad haweenka aad empower gareysaan oo haweenka aad qayb weyn ka siisaan dawladda soo socota hadda tan waa bilow baa umaleynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabdhihii maamulkan hayana aad baa ugu mahad celinaya oo Sahro Warfaa iyo Naciimo ay ka mid yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo fiyo